Bismillaah, assalaamu calaykum. Waa idin salaame asxaabta meel walbaa joogtiin. Kusoo dhawaada channelkeena Bushra Cooking and Healthy. Walaalahay maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo arrin yar oo YouTube-ka ka taagan oo anigana la igu soo daray. In la igu soo daro ma ahayn maadaama la igu soo daray sida la igu soo daray iyo sida loo fasirtay iyo sida looga hadlay ayaa rabaa inaan ka hadlo. Marka saa ula socotiin walaalahay YouTube-ka wixii ka socdo qof kasta indhihiisa ayaa macallin u ah saa u aragteen. Marka aniga maanta waxaan arkay gabar abaayo oo iga hadlayso fiidiyoogii ka hadlayso. Gabar abaayo ayaa waxay soo qaadatay fiidiyoyaal laba qof oo ay leedahay gabadhan kaleetood ayay koobiyeysay. Aniga fiidiyooga aan leeyahay oo Bushra ah waxaan soo galiyay 4 maalin ka hor anoo hilib sameynayo lamb chops. Qofkii yaqaano waa yaqaana, qofkii kaleetoodna waxa waaye lamb chops hilibka oo maxaa la dhahaa lambka ariga oo yariiska ah. I don't know ani ariga xoolaha si fiican ma kala aqaani ama idaha qofka si u yaqaano babygiisa. Lambka sheepka oo baby sheep ayaa soo qaaday oo feeraha ah. Hilibkaas ayaa suubiyay waa soo dhigay meesha qofkii inuu ka faa'iideysto dadkeyga ayaa u soo dhigay walaalahayga Soomaali. Then gabar kale ayaa lagu soo arkay channelkeeda wax u eg. I don't mind waxba dhib ma u arki. Gabar ayaa reaction ka bixisay. Horta gabadha reaction ka bixisay ani ma ka hadlayi, koobina ma ka hadlayi. Qofka wuxuu arka ayuu ka hadlaa. Qoraxna gacan laguma dabooli karo. Gabadhaas ani waxaan u arkaa qof reactionist ah oo journalist ah. Wixii ay ku aragto ay ka hadasho waa waxaas inay experience-geeda inay yihiin ayaa u maleynaa oo shaqadeedaba intaas ay tahay. Anyway, qof kasta wuxuu u soo galaa ani cunto karin iyo qurxin iyo waxba u soo galaa healthy inaan ka hadlo. Ayada waxay u soo gashaa journalist. Hadduu dhib dhaco wariyeyaasha meel kasta way taagan yihiin, kaamaradooda iyo mikrofoonkooda way wataan. Gabadhaaseyti waxa u qabsada waa qalad. Waxay aragtay ayay ka hadashay. Qof kasta opinion ayuu leeyahay, opinionkiisa ayuu ka hadlaa. Aniga waxaa rabaa arrinta aan ka hadlayo maanta waxay tahay oo maxaa la dhahaa meesha inaa fiidiyoo u soo duuba ii keentay. Gabadha fiidiyooga maxaa la dhahaye ku soo dartay oo dhahaysa aniga waxba ma koobiyeynin, aniga ma kuu haysti, aniga ma ku weydiinin. Hadda iga soo koobiyeysay I don't mind, I don't care, ma kala jeceli. Waxaa ku haystaa gabadha markay dadka u fasiraysay waxay tiri gabadhii abaayadii waxay keentay hilib oo ido I don't know wax uu yahay ma kasaayi lafo feera ah wayna qosashay. Ereyga inaa fiidiyoo u soo duuba keenay qosolka jeeska ma fiicno. Istihzaa waxa la dhaho ma fiicno. Waa xaraam istihzaaga. Marka inaa dhahdid maxaa la dhahaye gabadhaaseyti waxay keentay ma aqaani ma kasaayi ma ku qaldanid laakiin inaa qosashid qalad ayaa ku samaysay. Teeda kale in qof bini'aadan la yaso waa qalad. Adoo bini'aadan ah qof bini'aadan in la yaso qalad waaye. Walaqad karramnaa banii aadama. Ilaahay ayaa karaameeyay bini'aadamka. Adigoo insaan kaleeto ah oo bini'aadan ah inaa dhahdid maxaa la dhahaye qofkaaseyti waa la yasay, waa la yasaa waa xaraam. Anyway, ani qoftaas ma kasaayi. Taasna shaqadeeda ma ahan laakiin waa iga waano. Quraanna waa aqrinaysay, sheekhna waa iska dhigaysay. Ama waa tahay I don't know, Allahu yaclam. Ma kugu dambaabi karo gabar walaashay ayaa tahay, gabar YouTuber ayaa tahay. Weligay ma arkin channelkaaga maanta iigu kaa horeysay inaa maxanaha istihzaa inaa samaysid qalad. Teeda kale waxaa dhahday haddii aan gabar Soomaali ma koobiyeynayo ayaa dhahday. Gabar Soomaali intee la adahay inteesa ka dhiman tahay taas ayaa ku weydiinaa. Adiga ayaa Soomaali ah. Haddaa rabo inaan wax soo koobiyeeyo ayaa tiri waxaan aadayaa chef weyn.
3 luuqad ayaan aqaanaa, Google ayaan aadayaa, chef ayaa soo koobiyeynayaa. Gabar walaasha adoo yasaysid ayaa qof kale aadaysaa. Still koobigii ayaa tahay. Teeda kaleetood ani ikoobiyey maku dhihin waana ikoobiyeysi maku dhihin ilaa hadda. Teeda kaleetood waxaa tiri 3 luuqad ayaa ku hadlaa. Abaayo 3 luuqad hadaa ku hadashid dadkoo dhan luuqado badan ayaa ku hadlaan. Anigaas hadda kula hadlaayo hadduu fiidiyowgayga ku soo gaaro 7 luuqad ayaa ku hadlaa. 5 luuqad ayaa perfect ugu hadlaa, si fiican ugu hadlaa. 2 luuqadna waa lahjad maxaa la dhahay language oo national way dhaaftay. Lahjad waaye. Qabaa'il lahjadahooda waaye oo ajnabi ah. Ma fahantay? So 7 luuqad ayaa ku hadlaa. Chef hadaa soo koobiyeynaysidna maybe anigaba chef ayaa ahay. Hadaa runta kuu sheego chef ayaa ahay. Maybe hadaa maku jirto. Hadaa rabtid inaa i baratid ama waxa ahay inaa ogaatid waa la xiriiri kartaa dadka degan Juja Road, Nairobi, Kenya. Bushra cooking class aan soo hayay 7 sano. Intaasoo arday ka soo bixiyey. Alxamdulillaah kuma faani. Laakiin inaad dhahdid Soomaali ma koobiyeynaa qalad ayaa kugu ahayd. Chef ayaa soo koobiyeynaa. Anigaba chef ayaa ahay. Shahaado ka wato. Alxamdulillaah. Taasna inaa weligay qof u sheego ma rabin. YouTube-ka u soo galay. Dadkii ugu xirnaa. Dadka Soomaalida walaalahayga inaa u faa'iideeyo. Waxyaalaha ku dhaamo anigana aan faa'iido ka qaato. Alxamdulillaah faa'iido badan ayaa ka bartay YouTube-ka. Maxaa la dhahaye anigana waa la iga faa'iiday. Alxamdulillaah. Taas ayaa waxay ahayd hadafka u soo galay YouTube. Ma ahayn inaa sheego waxaa ahay iyo waxaa wato. Mana la iga maqlin. Laakiin hadda inaa iskiin baro danta ayaa igu qasabtay. Dadka yaqaano inaa chef ahaa oo isoo bixiyeen oo isoo garab qabteen. Alxamdulillaah oo igu dhiirigeliyeen inaa anoo gurigeyga joogo cooking class u sameeyo. Way joogaan. Alxamdulillaah adduunkay taagan yihiin. Meeshaan aniga anoo maxaa la dhahay iska joogo xataa oo alxamdulillaah ibare Ilaahay qof kasta talent ayuu siiyaa, xirfad ayuu siiyaa, wax ayuu maxaa la dhahay jecel yahay inuu sameeyo markasta. Dadka u bogaayaan, jeclaanayaan. Cuntadaas ayaa waxay ahayd inaa kariyo, qof kasta ka caawiyo. Dadka markay arkeen ayay waxay dhaheen Bushro noo fur asxaanka noo sameynaysid. Adigoo maxaa la dhahaa gurigaaga joogtid. Anagana aan kaa faa'iidno. Adigana ku shaqayso ilmo yar ayaa haysataaye. Gabadhaasna gabar kale ma ahan waa gabar walaashay jiiraankeyga ahayd. Soomaaliyeed hooyo ah. Maasha Allah. Intaa ka salaama walaashay Xaliimo Ilfur ku nool magaalada Mareykan Minnesota u maleynaa inay degan tahay. Gabadhii aqliga i siisay. Qof kasta qof ayaa wax wixii ka maqan ku daro. Maanta haddii adi wax kaa maqan qof walaalka ka qaadatid inaa xaqirtid ma ahan. Marka Xaliimo waa ku salaama 100% walaashay qaali. Anoo iska fadhiyo oo xifradeeda ku shaqaysanaynin qofkii igu dhiirigeliyey oo ii soo aruuriyey gabdho adiga waaye. Khayr badan Ilaah ku siiyo. I hope inaad daawanaysid aana daawan doontid fiidiyowgan. YouTube-ka hadaa idinkala hadlo YouTube-ka oo hadda la isku haysto oo dadka dhahayaan hebelo waa caan ah. Heblaaya 100,000 haysato, heblaaya 1,000 haysato. Waxaas ceeb waaye. Dadka ajaanibta wax isqabsanaya ma lagu arko. Soomaalida meel kasta isku qabsanayaan. Qalad inaa iska qabsano. Waxaa la iga koobiyey, waxaa iga soo xaday. Waxaas ma fiicno. YouTube-kan ani hadaa rabo inaa soo galo 7 sano ka hor markaa cuntada kariska bilaabe ayaa wiil walaalkay wuxuu igula taliyey oo dariskeyga ah. Dadka isoo gacan qabtay dhan walaal dhalasho igama la dhexeyso. Waa daris iyo weji dadaa ku bartay. Alxamdulillaah. Oo cameraman aroosyada duuba ayaa wuxuu dhahay Bushro
maadaama aa waxyaalahan soo bixbixinaysid quruxda badan youtube aa ku gelinaa, youtube aa kaa duubo. ani markaas youtube ma kaseynin, maxaa la dhahaa iguma jirin, maxaa la dhahaa maskaxdaas youtube-ka lagu furanayo iyo youtube aa laga shaqaystaa iyo youtube aa jiro ma kaseyn. qofba maalin ayuu wax bartaa. wax ma aqaani ceeb ma ahan, wax ma aqaani ceeb ma ahan. marka wiilkaasna asagana inta uga mahadcelinaa walaalkeygii markaas idhaha youtube aa kuu furaa. sometimes asxaabteeda waxay dhahaan bushra waqtigaas haddaa youtube furan lahayd maanta waxaa ahaan lahayd meel koraa joogi lahayd. maba kala jeceliyaa taagana ani maalintaas haddaa furan lahaa iyo maanta saan leh inaa ahaan lahaa u malaynaa. bcause inaa iska bedelo qofka ahay ma jecli. meel kasta aa gaaro alxamdulilah still waxaa aaminsanahay inaa gaarayo, oona haddana aan gaarsanahay meesha aa rabayba inaa gaarsanahay oo waxba iga maqneen. wiilkaasna meeshaan aa ka salaama, wiil youtuber waaye. production wuu kusoo galaa channel aa u malaynaa, bilo ayaa la dhahaa. reer Windrush aad ayaa idiin salaamaya. walaalkey mar hore ayaa ila jecleed youtube, laakiin after long time ayaa furtay, after waqti dheer kadib ayaa furtay. aad ayaa u mahadsaneed. wiil kale ayaa jiro oo maxaa la dhahaye asagana igu qalqaaliyay inuu maxaa la dhahaye aan youtube sameysto, oo dad badan dibadaha iga soo xiray, oo inaa cuntadeyda uu ku faafiyey facebookyaasha iyo meelo badan waqtigaas, oo la ila soo xiriiray xataa. asagana intaa ka salaamaa. maxamed xasan mohaa walaalkey, walaal jira. fartuun waa ku salaamay xabiibti. waxa waaye dadkaas reer Malaysia ayay joogaan. marka walaashay waxaa kuu sheegaa duniyo magacaaga inuu yahay jeclahay. inaad dhahdid sheef ayaa wax kasoo koobiyeynaa iyo maxaa la dhahaye ihtiza jes maa la dhahaa, inaa u qosashid waa laga fiican yahay. marka asxaabey intaas yar ayaa idinla sheer gareynaye. waxaa fiican dadka intii la barto oo la isbarto. marka waxa yar aa ku darsan lahaa oo youtube ka dhex socdo, youtube waxa ka dhex socdo dadka dhan way u jeedaan, indhaha mala-aan. qof wixiisa soo qaatana ummadda way u jeedaan. qofkii ka hadlana qalad kuma lahan, qofkii comment ka bixiyana qalad kuma lahan. soo qorax waxaaba la dhahaybo gacan laguma dabooli karo. marka wax walba waa loo jeedaaye indhaha yaa la istirin. teeda kaleetood cid ku dhegana ma lahan. koley ani cidna kuma dhegani, cidnana ma haysti. hadalkaas iyo qosolkaas ayaa videogan usoo diray. I hope inay fahmi doontiin meeshaa ka hadlaayo iyo sababta u hadlaayo. sidaas iyo waxaa idinka tagayaa insha allah. See you in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.